هذا أنا وحان مغلي هذا أنت مغلي سو أم يموقته وعدد ولا أسبوع ما صومه هذا سوق شيء بس وإلى السلامة أنا وحالها نظيف ومعي وحالها اللي بعد هاي وقبنا مغلي ويان نكن ونكا وين ويان أنت قالوا شغاله الدولة ويان يوينك ويان وسود وادا ما بقشين سود وادا warkiina waan haynaa meel markii la imaadan oo kale oo dawlad kale la imaado waxba iska jira kale waa garanayso sama nidaam baa jira wax baa la qori warqadaha la qori wax dawlad baa wixii baa socda laakiin insha Allah dawladda waxay kala saari doontaa marka soo dhawaada anagana warkiina waa in insha Allah sida ogaada insha Allah so basically marka waxaan leenahay hadda anaga inaan maanta waxaan u imaanay inaan warkiina helno aan ogaano waxa ku sugan tihiin hadda waan ogaanay meesha hadda ninkii weynaa uu socdaa anigoo county weynaa waan socdaa waxaa socdaa ninkii weynaa dawladda dhexe ninka waa ninka dawladda dhexe weynaa ee meesha mas'uulka ahaa macnaa inaan warkiina waan u imaanay waan ogaanay warkiina waan gudbinaynaa insha Allah khayr rajay niyad khayr u sheegay insha Allah First of all, I cannot speak Somali. I'm very sorry. But I agree very much with the governor. We are here to look at the situation and see how best we can help you. It's not very easy, it's complicated, but be assured that we will support you. With everything that you need. Just be patient. We will do our best. That's why we came. Thank you very much. This is outside the These are only arrivals. These are new arrivals. These are only arrivals. Actually, this is not even the beginning. They have already crossed. We can see them outside. halka banaanka dagaal yar istaaga sababta ma qadana ليه ده السنتر just from help local help each other marka arinta ma loo miya ma gabadha la jirto dadka buuxa ma ana shar abod again Jubaland actually it's under control of الشباب هاوس تعدل حسب الأمار هي رفقات يقلبها مسحوم أمار يرفقات On the Somali side, before you come أنت جوا لك صوتك أنت ما عاونات أنت ما تسوي مركب قال ماشي نبدأ ويسد حصل على هالودها ونسكا بها سكان هذه بهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. ما أنت هل كان وحان جوغا دداب وحان جوغا حرضة لو أقانو دقاحلي بنان كذا ماشي وحانو إيماني
anigoo la socdo ninka u weyn United Nation qaybta maartay gargaarta ee loo qariyo UNHCR ninka u weyn adduunka oo loo aqaano High Commissioner-ga ayaan la imaaday waxa halkan aan u imaanay inaan bal ka soo wardoono dadka hadda soo galahayo hadda xagga Soomaaliya laga soo galahayo oo soo qaxay oo ka soo qaxay xaggaas ayagoo ka soo qaxay ama abaara qabsaday ama culays kale oo qabsadeen iyo amni darro iyo maartay waxyaabo kale marka waxaan halkan ku aragnay qoysas baa la kulanay waa kuwaas daba taagan waa arkaysiin ogaashada taagan weeyaan dad badan baa soo galay ilaa iyo 10,000 qadar baa la sheegayaa marka anaga hadda doorkeena haddaan nahay countigii dadkan walaalaha ay imaadeen horta mas'uuliyiinta waa la leeyahay hadda culayska hor anagu nagu dhacaya marka anaga hadda waajibkana saaran dadkan imaaday waa walaalaheen weeyaan waa dadkeena waa dad masaakiin oo rayid ah oo soo qaxay bal wixii aan u qaban karno baan ka hadlaynay aniga iyo maanta ninka UN-ka u weyn anagoo doonayna inaan la kaashano dawladda dhexe national government-ga in culaysyaha jira la qaado oo dadkan inta la kari karo maartay wixii sax ku soo galay oo qaxootinimo sax ku soo galay maartay in la soo dhaweeyo oo muxuu ahaa loo fudeeyo hawsha loo fudeeyo marka insha Allah walaalaha isku soo qaadnay qoyska waa aragnay waa la sheekaysanay ilaa idinkii waxaan rajaynaynaa sidii ugu dhowdahay in aan loo fudeeyo ayaan rajaynaa billahi tacaala gafan nadiif xagee maraysaa arintii in dib loo furo ifatu maadaama aad gafanii tahay arintaas ay dawladda qusayso waan anaga ifatu haddaan nahay countiga county ahaan in ifatu la furo raalli baan ka nahay waan ogolaanay waxba kama qabno maxaa yeelay horeba ayaa qaxooti waa ugu talagalay facilities ka dhisnaana waliba ka dhisan yihiin inay dadka hadda soo galay in meesha abaarta lagu soo dhaweeyo waxba kama qabno laakiin waxaa iska jira dawladda dhaxan ayadana oo national government-ga oo xagga security ku saabsanna waxay arintaa wax bay ka dhihi rabaan in macnaha aan halka aan isla aragno oo aan maartay muwaafaqo wada helno ay u baahan tahay hadda hawsha xaggaasha jirta waxaan rajaynaa ayaga in muwaafaqada ay soo degdegto oo si dhowba loo furo ifatu ay rajaynaa insha Allah tacaala maadaama aad sheegtay in ifatu la furayo qaxootiga jooga dadaab kelima aan dhagaxley xaga dheer waxaan ognahay dad fara badan oo guryo la'aan ah qaarkood qaar ma haystaan dadkan maadaama hadda la siiyey boono keliya dadkii qaxootigii ayaga isku ma ahan qaarkood sharciyo haystaan oo qaxootiga ku dhex maraan haddii aad tihiin dowladda countiga Gaarisa maxaad la damacsantihiin keli boonada ma ku soconaysaa mise in proof sheetkii registrationkii tooska ah qaxootiga la geliyo horta waxaan ku sheegayaa anaga hadda waxaan noqosay horta waa dhulkeena weeyaan dhulka anaga iska leh anaga county government ma hadlayaa dhulkaas anaga waa la weydiiyey ifatu maadaama inay dhulka ay leedihiin oo hore la xiray in hadda la furo hadda tidin county ma ogoshiin buu su'aalka ahaa wixii kale oo ku saabsanaa carbon iyo maxaa la dhahaa diiwaangelin iyo profiling iyo kuwa waa shaqada UN-ka way anaga ma aha marka insha Allah tacaala waxaan rabaa I want to say this very, very briefly that today I am here at Dadaab, at Dagahley refugee camp, the outskirts of actually Dagahley, not in the camp itself, but the outskirts where I can see or I met a large number of new refugee, influx or, arrivals. These people have arrived from Somalia. They've crossed the border, some of them about 2 weeks ago, some about 10 days ago. They've all come here, and they are basically escaping a very bad drought from on the side of Somalia, and also matters of insecurity. Of course, drought is also here with us in Garissa County, but again, that is the way life is. They thought they're more worse than us, and they've arrived here. And therefore, our responsibility as a responsible county, as responsible leadership, is to help them as much as possible. That's why I came here this morning with the UN High Commissioner for Refugees, and thankfully we are discussing how we can mitigate the very, very severe circumstances
presence that we are seeing here. And of course, we are also going back to Nairobi so that meetings with the national government can also help quickly in pushing matters faster so that these people, there are no lives lost in terms of these people coming into our country. Asanteni sana. You have advocated for immediate response. I've advocated for immediate response. I have, for instance, advocated for Ifatu camp to be reopened, that being a big chunk of land in our county which has held facilities before for UN, and therefore we are saying the same can be reopened for them. But of course, matters of procedure and profiling and recording them for the necessary support, that's a matter for UN and for WFP. As far as we're concerned, we are okay with Ifatu camp being reopened to support these people. And also, I've advocated for quick, proactive action to be taken so that, they are supported the necessary action as sooner than later. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا محمد الشيخ MC laga soo doortay Labasigaale. Maanta hawshan aanu maana xawaaya arrimaha qaxootiga cusub. Qaxootiga aan arkaysan waa qaxooti cusub oo hadda imaaday. Meesha ay ku sugan yihiin waa wardkayga. Marka laga soo baxo meesha lagu talagalay qaxootiga iyo hadda ku sugan yihiin waa dad aad u yacan, musqul ma haystaan, biyo ma haystaan, cunto ma haystaan, way rafaasan yihiin. Hawlahaas aan u maanay si maartay loo howlgali lahaa oo dhaqaale loo siin lahaa oo maartay waxa la wixii u baahan loo siin lahaa. Ifootina loo fur lahaa si degdeg ah. Assalaamu calaykum.